bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal kusoo dhawaada qodobada wararkayaga kuwooda ugu doorka roon. shirweynihii sagaalaad ee baarlamaanka wadamada iskaashiga islaamka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada tehraan ee caasimadda wadanka iiraan, iyadoo halkaasina heshiisyo ay ku kala seexdeen baarlamaanada wadamada Soomaaliya iyo Suudaan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo wafdiga hogaaminayo ee ku sugan dalka Kenya ayaa waxa ay kulan la qaateen madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dalka Kenya. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaadatay qaar ka mid ah haweenka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo kulankaasina looga tashanayay qaabka loo bixiyay mucaawino dowladda Turkiga ay ugu talagashay haweenka iyo caruurta ku nool gobolka Banaadir. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay weeraro ay fashiliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab loogu geystay khasaare xoogan kadib markii ay isku dayeen inay soo weeraraan difaacyo ay ciidamadu ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolada Bay iyo Shabeellaha Hoose. qodobada wararkayaga dibaddana waxaa ugu waaweyn ugu yaraantii 25 ruux ayaa lagu soo waramayaa in ay geeriyoodeen halka in ka badan 100 qofna dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen kadib markii isu soo baxyo rabshado wata ay dhex mareen ciidamada booliiska wadanka Ukraine iyo sidoo kale kooxo banaanbaxayaal ah oo rabshado ka wada magaalada Kiev ee caasimadda wadankaasi. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen akhbaaraadkii ugu waaweynaa warkayaga. haatanna u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan.